Tilmaam Academy. بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada koorskeena imtixaan ahaa ee English Vocabulary in Use. Today waxaan rabnaa insha Allah inaan bilaawno module 4 cutubka afraad oo aan ugu magac darnay leisure, waxyaabaha qofka markuu firaaqada yahay uu jecel yahay inuu iska samaysto. Leisure haddaa fiirisiin wax kastoo la xiriira leisure ayaa lagu soo koobay chapterkan 18 unit 18 oo kale waxaan uga hadli doonaa holidays, fasaxyada. Dadka marka shaqada fasax ka yihiin waxyaabaha ay sameeyaan, meelaha ay aadi karaan iyo waxyaabahaas oo kale. 19 oo kale waxaan ku arki doonaa sida loo dukaamaysto erey la xiriira iyo dukaamada noocyadooda iyo waxyaabahaas oo kale. Sidee online wax loo gataa oo kale. Hotel sidee loo kireystaa, sidee receptionka ninka fadhiyo loo wareystaa, loo weydiiyaa sariiraha yaallo noocyada yihiin waxyaabahaas oo kale. Sidee banaanka inta loo aado cunto banaanka looga doontaa, sportska kala duwan iyo sida loo isticmaalo cinema, shaleemada qofka markuu firaaqaya waxyaabaha uu sameyn karo. Iyo ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabi doonaa chapterkan music and musical instrument, in wax aan ka ogaano qalabyada musica loo isticmaalo. Marka ereyadaas chapteradaas oo dhan ayaan rabnaa in aan ku arki karno insha Allah. Markaas aan bilaabno marka casharkeena maanta ugu horeeya marka unit 18. Unit 18 wuxuu nooga sheekeyn doonaa holidays, waxa la dhahay holidays. Bal aan isla fiirino marka ugu horeyso section A aan wada dhegeysano, kadibna aan isla fiirino macnihiisa markaas. A. Holiday. Noun. We had a lovely holiday in Egypt in 2014. I'm not working next week. I'm on holiday. Are you going on holiday this summer? Alright, waxaan fiirin doonaa holiday. Holiday ereygaas waa noun, waa magac waaye. Marka qofkan wuxuu leeyahay we had a lovely holiday in Egypt. Waxaan kusoo qaadanay safar aad loo jeclaysta ayaan kusoo qaadanay in Egypt in 2014. Sanadka markuu ahay 2014 markuu ahaa 2014 Egypt ayaan waxaan kusoo qaadanay a lovely holiday ayaan kusoo qaadanay. Qofkan kale wuxuu leeyahay I am not working next week. Aniga isbuuc soo socda ma shaqeyn doono. Why? Because I am on holiday. Sababta fasax ayaan ku jiraa. Okay. Sidoo kale waxaan fiirin doonaa are you going on holiday this summer? Qof ayaa waxaa weydiinaysaa, waxaa leedahay xagaagan soo socdo holiday mayaa geli doontaa, fasax mayaa geli doontaa. Are you going on holiday? Fasax mayaa geli doontaa this summer, xagaaga soo socda. Section B bal aan isla fiirino types of holidays, noocyada holidayska ee jiro. Bal aan isla dhegeysano marka hore. B. Types of holidays. We're going on a package holiday to Hong Kong. Flights and hotel are included. We're going to have a winter holiday this year. I want to go camping this year. Sleep in a tent. I'm going on a walking holiday in the Alps. A coach tour is an easy way to go on holiday, traveling in a comfortable bus. Alright, bal isla fiirina marka. We are going on a package holiday to Hong Kong. Qofkan waxay leeyihiin waxaan aadi doonaa a package holiday. Package holiday ayaan ku aadi doonaa to Hong Kong, magaalada loo yaqaano Hong Kong. Marka maxaa loola jeedaa package holiday? Waa package isku xiran oo loola jeedo waxaa ku jiro waaye flights, ticketka lacagtiisa, and hotels are included. Lacagaha hotelka iyo ticketka oo isku dhegan. Qofka marka lacagta laga qaadayo wuxuu dhihi karaa aniga package waa waxaan. For example, hadda dadaa waxay aadaan cumrada marka waxaa lagu sheegaya lacagta hotelka, lacagta ticketka, everything waxaa lagu leeyahay this is a package waa lahaa package. Package marka waxaa waaye waa wax isku xiran oo dhowr shay, dhowr service oo dhowr adeeg lagu qabtay. Marka teamka marka waxay leeyihiin we are going on a package holiday. Holiday isku xiran ayaan ku aadi doonaa to Hong Kong. Waxaan laga bixin doonaa waaye
flightka lacagtiisa iyo lacagta hotelka waxaas oo dhan. We are going to have a winter holiday this year. We are going to have sanadkan waxaan rabnaa inaan helno ama baxno a winter holiday. Safar waxaa jiro oo jiilaalka la aado this year. Badanaa dadka qaar summerka ayay badanaa fasax iska helaan, normalkaas ah. Laakiin sanadaha qaar waxaa laga yaabaa fasax kale oo gaaban inay heshaan laga yaabaa xilliga jiilaalka oo kale ah. Okay, marka winter iyo summer waxyaabahaas waxay ka mid yihiin xilliyada. Dadka qaar xilli ay ku sheegaan. Waddan kastaba bilo ayaa jiro gooni ah oo ay ku fahmi karaan. I want to go camping this year. Waxaan rabaa inaan aado camping this year. Camping waxaa loola jeedaa to sleep in a tent. Dad waxaa jiro baashaalka ay ka qabato in ay dalxiis inta aadaan, hotel ma kiraysanayaan, tenda yar ayay dhistaan, kadibna habeenka marka la gaaro tendaas ayay hoos seexdaan markaas. Waxaas waxaa loo yaqaanaa camping. Allah wuu ka xiisa badan yahay holidayska oo la kiraysto hoteelada iyo waxyaabahaas kale. I'm going on a working holiday in the Alps. Waxaan rabaa holidayga inaan ku qaato working holiday oo socod ah ayaa waxaan kusoo qaadan rabnaa in the Alps, buuraha caanka ah ee loo yaqaan Alps oo ku yaala dhanka Europe. Marka qofkaas marka waxay noqonaysaa dhowr maalin ayaa laga yaabaa inay ama hal maalin inay kusoo qaataan dalxiis dhankaas buuraha ah. Marka socod ay ku dhamaysanayaan, buurahan ku dhex soco, ka gudub iyo waxyaabahaas kale. A coach tour is an easy way to go on holiday. Coach tour waa baran doonaa si hordhac waa kana coach. Baabuurkan oo kale ayaa waxaa loo yaqaanaa coach. Waa bas aad u weyn waaye. A coach tour. Tour marka waxaa la in dadka lasoo tusiyo meelaha ugu caansan ayagoo oo saaran gaarigan. Is an easy way to go on holiday. Waa qaabka ugu fudud oo dadka holiday ku galaan. That means we're traveling in a comfortable bus. Bus oo qofka uu ku raaxaysanaya inuu ku safro ayaa loo yaqaanaa markaas coach kaas markaa coach tour. Muhiim marka maxaa ah holiday markii laga sheekeynayo waxaa muhiim qof kasta inuu wax ka yaqaano transportation iska jiro, gaadiidka la isticmaalo noocyadiisa kala duwan. Bal hamar ila fiiri gaadiidka jira markaas. C. Transport. Transport. By plane. By plane. By train. By train. By car. By car. By ferry. By ferry. By coach. By coach. For example, waxaad dhigi kartaa safarkan waxaan ku aadi doonaa I'm going to London by plane. London ayaan rabaa inaan aado by plane. Diyaarad inaan ku aadaan rabaa. By train inaan train ku aadaan rabaa. By car inaan gaari ku aadaan rabaa. By ferry. Ferry waa doon camal iska dheh. Waa doon aad u weyn waaye. Mana gaarayso, markabna ma gaarayso. Boat na waa ka tagtay, doon ma ka tagtay. Like adi almost doon ay xisaabsantaa markaas. Ferry ayaa loo yaqaanaa. By coach. Gaarigaas weynanka badan waxaa loo yaqaanaa coach. Section D. Markii holiday laga sheekeynayo ereyo muhiim ayaa jiro qofka oo inuu wax ka fahmo ay qasab tahay. Don't forget to take. Ha hilmaamin inaad soo qaadatid erayadan lagu baraya markaas. Bal hama dhegeysta markaas. D. Don't forget to take Your passport if you are going to another country, a visa, a stamp that you need in your passport to go to some countries, your tickets, some currency, money of the country you are going to, a camera, your luggage, for example, a suitcase or a rucksack. All right. passport, ticket, currency, Currency. camera, Camera. suitcase, Suitcase. rucksack, Rucksack. Ereyadaas waa ereyada kor lagu soo isticmaalay ayaa dib lagu tuso mar labaad. Don't forget to take your passport. Ha hilmaamin inaad qaadatid your passport if you are going to travel to another country. Qofku markuu rabo waddan kale inuu aado without passport ma safri karo qofkaas. Okay, a visa inaa heshid muhiim waa visa. Visa means stamp. waa istaambo ama shabad oo lagu dhufanayo baasaboorkaaga si waddan kale aa u gashid.
stamp that you need in your passport to go to some countries. wadamada qaarkood visa ay u baahan tahay wadamada qaar. Your ticket hilmaamin. If you want to go on holiday, don't forget to take your ticket. Ticket la'aana ma socon kartid. Your currency. Currency waxaa loo yaqaanaa lacagta. Money of the country that you are going to. Wadanka u socotidna lacagtiisa qayb ka mid ah waa inaad heli kartaa. For example, dollar qaadatay. Dollar meesha inuu ka shaqeynaa laga yaabaa. Marka haddii aad tagtid meelaha oo exchange-ga lagu sarrifo lacagaha waxaa laga yaabaa inaad ka heli kartid wadanka u socotid. Let's say Japan ayaa u socotaa. Airportka waxaa ka helaysaa the Japan currency. Lacagta ay isticmaalaan. Currency marka waxaa la lacagta dadka isticmaalaan. Somali currency waxaa ahada shilin Somali. Lacagta kunka shilin ayaa wuxuu yahay Somali currency asaga ah. A camera. Haddii holiday aad u socotid waxaa muhiim ah don't forget to take your camera. Camera hilmaamin because waxaa la rabaa inaad wax soo sawiratid mararka qaar. Your luggage. Luggage kaadana hilmaamin. Luggage waxaa la isku dhahaa boorsooyinka safarka kaa saacidaya iyo alaabaha meesha aad ku ridanaysid. Luggage loo yaqaana. Your luggage. Example waxaa ka mid ah suitcase. Boorsadan kale waxaa dhehnaa suitcase. Rucksack. midaan kale dadka safarada gaaban galo badan waxay sameeyaan rucksack. waa boorso aad u fudud oo waterproof ah biyo aan gareynin wax alaab badanna kuu deeqi karta markaas. taasoo kale waxaa loo yaqaanaa rucksack. inaan ka aragtaan laga yaabaa muuqaalada dadka qaar safarada iska leh markaas. ugu dambeyn the last section waxaan fiirin doonaa expressions. bal sidee loo isticmaali karaa ereyadan dad ku sheekeysanaya ayaan arki doonaa markaas. bal aan sal dhegeysano marka hore. E. Expressions. Are you flying to France from England? No, we're going by ferry. What are you going to do in Madrid? We want to try the local food and enjoy the nightlife. Have a great time and send me a postcard. All right. laba qof aa sheekaysanaysa A and B ayaa sheekaysanaya. Are you flying to France from England? diyaarad ma ka raacaysaa waaye from France to England ma diyaarad u raacaysaa? Are you flying? diyaarad ma u raacaysaa? No, we are going by ferry. maya waxaan raaci doonaa by ferry. Ferryna waxaan kusoo aragnay sectionka hadda waa nooc ka mid a doon camal waaye. doon waxoogaa weyn oo dadka qaadi karto. What are you going to do in Madrid? Madrid maxaa ka qaban doontaa oo qofku dhahay. Let's say qof ugu sheekayso waxaa dhahday next week I am traveling to Canada. Canada ayaan u socdaa. kadib qofka wuxuu ku dhihi karaa what are you going to do in Canada? Canada maxaa ka soo qaban rabtaa? We want to try to local food. waxaan rabnaa inaan soo tijaabino local food. cunnada oo dadka u dhasha wadankaas cunnada ay cunaan ayaan rabnaa soo tijaabiyo. And enjoy the night life. kadibna aan kusoo raaxaysto the night life. nolosha habeenka meesha ka jirto. nolosha habeenka waxaa laga wadaa in aan soo fiiriyo clubska, streets, wadooyinka iyo waxyaabahaas oo kale, beaches, xeebaha iyo waxyaabahaas oo kale. night life aa la isku dhahaa. kadibna qofkaas waa inaa u rajaysaa wax fiican. waxaa leedahay markaa have a great time. waxaan ku rajaynayaa in waqti fiican aa qaadan doontid. have a great time and send me a postcard. iyadana soo dir postcard. postcard waa waraaqa dadka isku soo diraan. laakiin waraaqad yar oo qurux badan oo bashqad ah oo ku qoran tahay from Ali ayaa kuu soo qoray to wuxuu soo qoray qofkaas. uga sheekay waxaa leedahay wixii alla soo qoranta uga sheekeynaysaa markaas. erey kale oo aad u fara badan oo la xiriira traveling chapter gooni ayuu buugga nagu tusin doonaa oo loo yaqaano chapter 32. traveling ayaa si gooni ah looga sheekeyn doonaa. waa tegi doonaa insha Allah. sidoo kale unit 49 asina waxaan ku arki doonaa waxa la xiriira moving, socodka iyo vocabulary la xiriira. okay, halkaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa chapterkan. waxaa inoo balan insha Allah chapterka xiga intaanan gaarin inaan ka wada shaqeyno wixii exercise ah oo chapterkan oo wato si holiday wax badan aan uga fahno insha Allah. sidaas iyo chapterka xiga insha Allah. markaas maca salaama.